بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب آديات بيدوغم هسنتهين وقتينا iyo hawsha adageed haysaan soo dhaweynta maalin walba aad la taagantihiin aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Intaa kadib aniga safar yar gaaban baan gaaray oo idinkaga maqnaa dhowr cisho. Ilaahayna waana nabad keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan soo noqonay inaan dardar gelino hawlihii isbedel doonka golihii badbaadada ee Jubbaland iyo sidii loogu tallaabsan lahaa hawlaha kale ee horyaala. waa la soconaa magaalada waxa ka jira, waa la soconaa afduubka doorashada lagu sameynayo, waa la soconaa khalkhalgelinta amniga lagu sameynayo, waa la soconaa odayaashii dhaqanka dhibaatada badan qaar badanna gaadhay qaar badanna ku socota. waa ka tacsiyeynaa suldaankii inaga geeriyooday ee gacanta ka xaqdarin dishay. waxaanan codsanaynaa in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey isaga iyo kuwii ka horeeyayba. waxaanan mar kale codsanaynaa in la nabadgeliyo inta hartay shacabka reer Jubbaland meel kastoo ay joogaan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba. waxba laguma gaarayo caburin iyo dil iyo dhibaato wax lagu gaaraya ma jiraan. waxaan markasta adkaynaynaa in amniga iyo wanaagga iyo horumarka la ilaaliyo. intaa marka laga tago waa la soconaa magaalada waxa ka socda oo ah afduubka iyo waxyaabaha qardajeexa ee shuruucda ka baxsan, garab marsan shuruucdii doorashada, garab marsan hanaankii dowladnimo, garab marsan systemkii Jubbaland ay ku dhisnayd, garab marsan systemka ay dowlad goboleedyada dalku ku dhisan yihiin ama dowladda federaalka iyo caalamka oo dhan ay ku qanci karaan, shacabka reer Jubbaland oo ku qanci karo, murashaxiinta iyo odayaashii cid waliba ay ku qanci karto. barnaamij aan ka ahayn cid kasta oo wadata meesha ay la aadayso iyadaa garanaysa. inagu haddaynu nahay golaha badbaadada Jubbaland ahna dadkii isbedel doonka ahaa, waxaynu u taagannahay in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, ku dhacda waqtigeeda, dadka reer Jubbaland oo dhan ku qanacsan yahay, caalamku goobjoog ka noqdo. xalaal iftiin baa la qashaa meel bannaan oo dadka oo dhan wada arkaan oo ummaddu ay wada aragto in hawshaas lagu qabto ayaan doonaynaa. marar badan ayaan ka dignay waxyaabaha soo socda, haddana waa muuqdaan. waxaan idiin sheegayaa idiina ballan qaadaynaa haddii alla yidhaahdo in aan Jubbaland cidina afduubi karin. waxaan idiin ballan qaadaynaa inaanay jiri karin qof intuu cidlo la galo isagu isku caana shuba oo isagu isdoorta. waxaan xaqiijin doonaa haddii alla yidhaahdo Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, dadku ay ku wada qanci karaan, caalamku uu goobjoog ka noqdo, meel kastoo ay ka dhici kartana inaan ku qabanno ayaan diyaar u nahay haddii alla yidhaahdo. waxaanu isku ogeyn golihii badbaadada Jubbaland markii aynu isugu nimid tallaabooyinka la qaadi doono oo wada tashiga ugu horeeyay. waxaan rabnaa inaan idin xaqiijino wada tashigii inuu soo gabagaboobay, haddana lagu dhaqaaqi doono hawlihii inuu hor yaallay oo ay ugu horeeyaan guddigii doorashada, xulitaankii baarlamaanka, oo ay soo xuli doonaan odayaasha saxda ah ee beelaha salaadiinta oo ay soo xuli doonaan. Jubbaland baarlamaan guddi ku sheega doorashadu soo xulay baarlamaan uma noqonayo. Jubbaland haddii alla yidhaahdo waxaa baarlamaan u noqonaya baarlamaan ay odayaasha iyo beelaha iyo haweenka iyo dhallinyaradu ka soo wada qayb qaateen xulitaankooda iyo tashigooda. waxaan idin xaqiijinaynaa
wax kasta oo ka soo baxa systemka afduubka ah burcadnimada ah nooc walba oo xumaana ka shaqaynaya inaanan marna aqoonsanaynin u hoggaansamaynin la shaqaynaynin isla mar ahaantaana aan shacabkeenna lagu caburin doonin waxaan u soo jeedinayaa haddii alla yidhaahdo shacabka reer Jubbaland meel kastoo ay joogaan in loo noqdo dariiqa xalaasha ah lagu noqdo odayaasha dhabta ah loo noqdo inay beeluhu tashadaan dadka beeluhu soo xusheenna ay qofkii ay u arkaan Jubbaland inuu dan u yahay ay doortaan qofkii intaa ka baqaya doorashada ka baqaya horaan u yidhi mar kalena waa odhanayaa doorashada inuu isaga hadho ayaa u sharaf badan haddii alla yidhaahdo waa ku mahadsantihiin wada tashiyadii ugu dambeeyay ayaynu gelaynaa haddii alla yidhaahdo saacadaha soo socda waxaanan idiin sheegaynaa haddii alla yidhaahdo inaan mari doono dariiq kasta oo badbaadada Jubbaland ay ku imanayso doorasho xor iyo xalaal ay ku dhacayso Jubbaland aan la afduubi karin meel kasta iyo xilli kasta iyo si kasta u dhici kartana aan u qaban doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan mar kale ka digaynaa uguna baaqaynaa shacabka reer Jubbaland ogeysiinaynaa beesha caalamka dawladda federaalka ciidamada AMISOM iyo cid kasta oo khusayso wax alla wixii dhibaato ah ee ka dhaca ee ku yimaada shacabka isbedel doonka ee ku yimaada murashaxiinta ee ku yimaada golaha badbaadada meel kasta oo ay joogaan mas'uuliyaddeeda waxa qaadaya maamulka afduubay doorashadii qof kasta oo ka soo horjeedana doonaya inuu dilo oo xidho oo uu caburiyo oo masaafuriyo maamulka ayaa qaadi doona mas'uuliyadda shacabka reer Jubbaland ee isbedel doonka waxaan ugu baaqayaa inay dhiiranaadaan rabitaankooda muujiyaan isu soo taagaan in ay ka dhabeeyaan rabitaankooda oo aan lagu caburin karin maxaan ku idhaahdaa waxyaabo yaryar oon macno lahayn odayaasha dhaqanka waxaan u soo jeedinaynaa waraaqaha la idin siinayaa waxba kama jiraan dadka aad soo xulaysaan waxba kama jiri doonaan cidda ay doortaan waxba kama jiri doona haddii alla yidhaahdo xaqiiqdu waxay tegaysaa in meel cad la isugu tago oo wax lagu doorto hadday taasi dhici weydo hadday taasi dhici weydo mas'uuliyadda wixii ka yimaada waxaa diidan waxa qaadaya cidda diidan in xalaal wax lagu qaybsado in meel iftiina wax lagu qasho isla mar ahaantaana dadkii saxda ay wax doortaan ka ayaa qaadi doona mas'uuliyadda waa maqlayna guddiga doorashada inay ka hadlaayeen dhaqaale la'aanta haysatay caalamku ay ka waayeen waa sax weeye caalamku doorasho hal nin loo abaabulayo dhaqaale kuma bixiyo dhaqaalaha doorashada loogu talagalay waa in lagu wada qancaa shacabka ku qancaa murashaxiinta ku qancaa laakiin shaad hal nin loo taleeyo caalamku lacag kuma bixinayo dhaqaalana kuma bixinayo waa amaanaynaa caalamka waa ku dhiirigelinaynaa go'aankooda mana soo dhaweynayna inay dhaqaale ku bixiyaan sababtoo ah waa guddi hal shakhsiya u shaqaynaya sidaasi darteed waxaan soo dhaweynaynaa in dib loogu laabto dariiqa saxda ah waxaan ammaan u soo jeedinaynaa ciidamada AMISOM waxaan u soo jeedinaynaa maxaan ku idhahdaa cid kasta oo Soomaaliya taageeraysa inay dadaalkeeda sii badiso isla mar ahaantaana lagu soo laabto dariiqa dimuqraadiyadda lagana baxo dariiqa afduubka dhammaanteen waxaa inoo ballana maalmaha soo socda haddii alla yidhaahdo Jubbaland maamul iyo doorasho xor iyo xalaal ka dhacaysa madaxweynaha aad idinku leedihiin baana ka soo bixi doona haddii alla yidhaahdo